هذا ما حنسميها يا باي أبو مودني السولي يا رب أي شبيلك هذا ما حنسمينا أي شيء والفكر والبادان كينا حسن ما يكرنا يا هاي محو الشيء هني كان أتلي التوانكي بالجاري أنا هكون شيء التوانكي مع ساعدي بالتاجية ساعد هاي محبة لي سمرك عاد قولي كان إسكا أدلا والله هيا الشيح بندون الله الشيح أنا حتى بعرفه نفي عن شيح عرب تامية أنا حتى الشيح واربنا وريا نفسه نصابي يا كسايا سيلو كريم متغنى هذيك أنا كسايت لي ما يغنى فين لواي ورنوصو سمي نكان أوصو سمي أنا كان إيصو سمي نفسه أنا حتى بعرفه يا هيجي 11 أنا أفر كوب بعرفه أنا شن كوب بعرفه dadka la mid ma ay koodhi caana ii soo raacay aniga taliye bangiga warbixina laga soo maqlay shaqaalaha iyo shacabka meesha ku xiriirana soo hadleen aniga ku soo wacay halo ismaqal ma jira taliye MLL balaash mehel ayaa ku joogo mas'uudiya soo gudbay halo taliye akhbar wanaagsan ayaan ku haynaa shankar dubla ayaan soo helnay dabcan asaga tuugada ayaa ka xeysata bangiga ayuu ku dhuuntay hadda maxaan sameynaa kiis culus horteena yaale taliye hoosh ma guda galnaa ha guda gala halo dhalinyaro youtube-kayga ku soo dhawaada warbixin qurux badan ayaad ka daawan doontaan doorashada aad iyo aad ayay u soo dhowdahay waqti xaadirkan ololaha ayaa socda maantana marti qaas ayaa istuudiyaha igu soo booqatay martidaasna cid kale maahe MLA Barkesh waaye ku soo dhawaada mudana mar kalean ku leeyahay channelkayga ku soo dhawow waad salaamantiin adiyo taageerahagaba inta aanan barnaamijka guda gelin bulshada nagu xiran maxaad leedahay bal la hadal 5 sano soo socota sharciga imaan doona dhamaantiina waa in aad aamintaan u taxgelisaan haddii sidaa aad samaysaan xisbigeena taageero ay idin noqonayaan hoolihiina si fudud ay idinku hagaajin doonaan qofku isagoo u baahan yahay ayuu dooran karaa cid adag saaraysa ma jirto sidoo doona ayuu u dooran karaa beelo qofkan oo kale anaga maalgashan karnaa Soomaa run ahaantii hadalkiisa aad baan ugu qancay waan ka helay baan ku yiri beelo la kabisa ku socod baan ku yiri laakiin deynta la iska rabaaya in shakhsiyadeena tahay soo laga ma yaabo waa laga yaabaa yaaqay janaalada noocan oo kale waa inaad ka fogaataan waqti xaadirkan la taagan yahayna waxaa qasaba doorashada inaan ku guuleysano iska dhaafa qiimo intay ku kacaysa diyaar ayaan u nahay muhiimadda waxay tahay guul in aan helno xitaa haddii lacag nagu filan anaga aanan haysanin wax walboo dhaco waa inaan guuldarri iska ilaalinaa soo ma saxnin aniga waad saxan tahay sidoo kalena miidiyaha waa in aan warbixinteena iyo hawlaheena aan ku gudbinaa waaye hadda maxaan sameynaa ii sheeg bal anaga lacag haddii aanan dhiibin 5 sano soo socota sidee noola dooranayaa